dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay ee Kenyaati ah lagaga shakiyay cudurka Ebola la geliyay karantiil. Saraakiisha caafimaadka gobolka Kericho ayaa sheegay in habeenayda u dhalatay dalka Kenya oo ku nool gobolkaasi laga helay cudurkan isla markaana la geliyay goob loo diyaariyay in lagu karantiilo dadka qaba cudurkan. Saraakiishu waxa ay sheegeen in habeenaydani laga helay calaamadaha cudurka Ebola sida xumada ama qandhada kulul. Warbixin ay soo saareen maamulka gobolka ayay ku sheegeen in habeenayda laga helay cudurkan shalay oo ay u gudubtay dalka Uganda halkaas oo ay ku booqatay segeeda. Kenya ayaa heegan gelisay hay'adaheeda caafimaadka waxaana la sameeyay shaqaale loo tababaray ka hortagga iyo la socoshada faafidda cudurkan. Kweli tumepata ujumbe tangu jana usiku ya kwamba kuna reported cases of Ebola district inaitwa Kasese. Kasese ni border ya Congo na Uganda, but on kwa side ya Uganda, na tumechukua mkakati ya kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola inasuiwa kwa kila namna kuingia Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay diyaarisay shaqaalaha caafimaadka ee dalka heeganka la geliyay kuwaas oo loogu talagalay inay la tacaalaan cudurka haddii uu soo gudbo. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in sidoo kale hay'adaha socdaalka iyo ammaanka dalka ay wargeliyeen isla markaana lala soconayo dhaqdhaqaaqa dadka soo galaya Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ku aadan u diyaar garowga xaaladaha degdegta ah waxay heegan gelisay howlwadeeno horey loogu tababaray ka falcelinta cudur dilaacyada noocan ah. Waxay diyaarisay agab loogu talagalay ka falcelinta xaaladaha noocan ah ayadoo la kaashatay hay'adda caalamiga ah ee taageera caafimaadka Soomaaliya. Waxay sidoo kale xiriir kala sameynaysaa hay'adaha dawladda ee ay qusayso hawshan sida hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. Cudurkan ayaa dadka qaba la karantiilaya ilaa 21 maalmood si looga hortago in dadka qaba cudurkan ay la falgalaan bulshada inteeda kale.